inkastoo xaaladda ammaan ee caasimadda ay tahay mid degan haddana caawa waxaa muuqanaysa saasaan colaadeed oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka gawaarida ay wataan askarta labada garab waxaad ku arkaysaa iyagoo ay u saaran yihiin hubka noocyadiisa culus sida qoraga sabanka oo gaari kasta oo ciidan uu saaran yahay ciidamada labada dhinac ayaa mararka qaar waxaad arkaysaa inuu soo kala dhexgalayo kala shaki taasi oo ah walwalka ugu weyn ay dadku qabaan feejignaanta askarta ayaa ah mid sareysa saraakiisha labada ciidan ayaa si isku mid askartooda wax fasax ugu diiday xaaladda adag ee la galay darteed iyadoo dhoolotuska soo bandhigista hubkana uu dib ugu bilowday magaalada Muqdisho warbaahinta madax bannaan ayaa isha ku haysa xaqiiqooyinka wararka la xiriira xaalka magaalada Muqdisho oo marmar ka dambaysa ay tahay mid jawi aan xasilooni sii galaysa marka loo eego ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka oo mararka qaar magaalada Muqdisho isku hor fadhiisanaya goor sii horeysa oo maanta waxa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag iyo degmooyinka Cabdicasiis iyo Kaaraan fariismo cusub ka sameystay ciidamada mucaaradka halka caawa wadada Cabdiqaasin ay markaasi ay soo buux dhaafiyeen ciidamo ka tirsan kuwa Haram Cad iyo kuwa Gorgor kuwaasoo qaarkood koray saraha ka agdhow wadada Cabdiqaasin maadaama wadada Cabdiqaasin ay joogaan ciidamo daacad u ah Generaal Saadiq John iyo Generaal Indha Cadde gaadiidkii tirada badnaa ee caawa la geeyay wadada Cabdiqaasin ayaa hadda ahayn kuwa aan ku sugneen marka laga reebo ciidamo tiro yar oo dawladda ka tirsan oo hadda ku sugan wadada number 4 gaar ahaan aaga Cabdiqaasin sidoo kale jawiga degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis ayaa ah mid degan iyadoo goobahaasi aysan jirin meel la isku hor fadhiya dhinaca kale dadka reer Muqdisho ayaa isugu soo baxay magaalada Muqdisho caawa kuwaasi oo ka kala mid degmooyinka waqooyi sida degmooyinka Cabdicasiis Shibis Kaaraan iyo Yakshiid qaar ka mid ah dadkan isugu soo baxay magaalada Muqdisho ayaa waxay cagta soo mariyeen goobo markaasi ciidamada militariga gaar ahaan kuwa shabeelooyinka ka yimid oo ka godoosan muddo kororsiga loo sameeyay madaxweyne Farmaajo oo fariismo ka sameystay degmooyinka Cabdicasiis iyo Kaaraan dadka ayaa halkaasi soo maray iyagoo ugu dambeyn isugu yimid isgooska Sanca oo kala qaybiya 3 degmo dadka ayaa waxa ay ku qeylaaminayeen madaxweyne Farmaajo dooni meeno muddo kororsi ma dooneyno iyo erayo kale qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la hadlay warbaahinta Nation Soomaalida maanta ma rabto burburin iyo dib iyo dictatornimo Soomaaliya waa ka gudubtay doorasho nimankii ka horeeyay doorashay diyaarsheen kursigana waa u baneeyeen inuu yiraahdo baarlamaanku isku haba dhacay baarlamaan dhac inuu yiraahdo igu dara dictatornimo waaye mana aqbalayno Farmaajo waqtigaaga waa dhamaaday waxaad xaq noogu leed waa ka dhamaadeen xaq nugu malihid filada oo basiibad ku deganta caawa sharci kuma deganid cabir kumaahin oo basiibad ku deganta caawa maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu jawaab ka bixi waayo dhiigeena waa dhiigiisa waa noo xalaal haddii uu taas ka soo jawaabi waayo eritrea iyo ciidan kala aakinsatana waxba kama tarayaan kuwa hadda maran habaabisana annaga dadkoodii waxa ugu baaqaynaa saacad kasta inay ka soo tagaan hadduu ilaahay yiraahdana way ka soo tagayaan habeenii maalinna waxa u taagannahay inaan Farmaajo iska sarnaso sida maahan caaw waxaan u soo baxnay shacabka Soomaaliyeed inay dareenkooda muujiyaan waxay diidan yihiin muddo kororsiga ayay diidan yihiin waxay diidan yihiin extensionka waxay diidan yihiin kalitaliska waxaan taagannahay xilligan la joogo jeero wax buudan meesha la yiraahdo qoladii dhehaysa jeero wax buudan ma tagi kartiin waxaan leenahay hadda waxaan taagannahay jeero wax buudan aan taagannahay Maxamed Yaxya Jinow warbaahinta Nation isgooska Sanca Muqdisho